السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن لما نمض الصوماليات ميل كستو adduunka aad ka joogtaan maanta waxaan barnaamij la yeelanaynaa mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Burco caasimadda gobolka Togdheer ku soo dhow aadan أهلا وسهلا هذه أبن ديسو دوينيا إنك استوى إرجع صهاد القادية قويها أنا قاعدين واحد إذا قف مركو أفرتن فني أو قنتها وحكي برتم لون كره قويها صح هذا اللي يرد سوماليين منكم إذا هو برعكو لقن صح أنت كده aadan bal su'aasha koowaad aan ku weydiinay horta dadka isbarbal taariikh nololeedka iyo halka ku dhalatay iyo bal dadku u sharax niyo hoyn adeer aniga aadan khadar cali baa la yiraahdaa magaalada Burcaan ku dhaqanahay oo ku noolahay taariikh la sheego dimilihiyo inaan yaro imka kacayo iyaala baan ahay 20kii dhawaan dhaafay marka waxa quran sheegi karaa waa inaan iskuul hoose oo Jamaal Cabdinaasir leeyahay ka soo baxay iyo iskuul sare mustaqbal leeyahay imka aan dhigto jaamacadaha Najaax iyo Alfiyo Burco oo ardayoon aan ahay wali wax qabada ama wax taariikh oo aan oran karo waan leeyahay oo aan sheegan karaana ma jirtay ilaa hadda marka qof uma ahay talaabadii nolosha haya saan wali laakiin history saas u dheeraan lahayn aadan su'aasha kale aan ku weydiinay waxa weeyaan waxa tahay dadka inta badan social media laga daawado ama dadka wax ugu soo gudbiyo xog dadka badankoodu waxay soo gudbiyaan xogo ku saabsan baraanki iyo majaajilista iyo waxaas soo gudbiyaan adigu waxa tahay qof ka duwan waxay dadku soo gudbiyaan inta badan waxa soo gudbisaa taariikh hore history iyo wax jira oo macni dadka ay ka tusaale qaadan karaan goorma marka fikirka kugu dhashay niyo walaal dhankaas soo gudbinta martii waxa la nimbicisantay ceelkeen qofba wuxuu ummadda hor keenaya نو فكر كان أسوق قد بنتي يوتيوب كني واحد يقومنوا تشرين منا نقواني وحنا نسكت أرسم شرو بواق بدل ما نسكت يسم شرو آخر سكون نسكت بنح شري مركا أذكر أحمد على الروبلة أو إمك تشوجا إنجليز مانشستر أيا أد يقول على شريني وحنا ذخرية السوق بالشدة اللي وذا جو كنا نسمي سو يوتيوب كاتس قد بي مدة صدق بروت كل دو إرجع يقول على مركي دمان وح أقونا بقول هاي يوتيوب كلا شيء جاي أركون أيوم من برابي كسيدي بنكو ضايو ما نستفكر كعسبة يقول الشا أما وح عسبة أنا قادو وبلاؤونه دون سوق بيا إلا أنت مدة أنت لك بتقول حجرت مركا فكر كعد بشدو سوق بينيس أما حكر هذا أنت يوحنا يو سنة ديت بنبلاد لابد يكون يستدي تمكن بيش استحاد بنبلاد كو بلاتنك مارج صدق لاتنك مارج إما كانت بيش كوبادة سجارة تمكن مرينا مركا سنة يتبان برود بن إما كل حجرة عن وذي برنامج كم آذن ملاذ هي همية كلا أما إن وحيابك كلا النقطة اسم نسا وحارب تين النقطة قف هيستوري عن أوريدين أيو أما إنه وحبارون دوني هادو نولش يسأل نقول صون قف وحبارة مثل هذا فيه كلا نولش كلا يلا هايو هذا سلا القبتي niyo wala horta hadafka ugu badan ee leeyahay bulshada badanka ay sheegan kartaa waa inaan ama dhaqaale helo ama qof magac loo siyaasiyo noqdo ama wax la mid ah niyo adduunka hadaf iyo jiraan qof kasta hadaf uu leeyahay inuu guursado doonayo inuu caruur dhalo doonayo inuu shaqaysto doonayo inuu hanti helo wax walba qof uu doonayo laakiin dayman hadana waxa la eega hadafka ugu mudan ee number 1 ka ah aniga hadafkayga ugu mudan niyo waa hal mid kaasina waxa weeyaan bulshadena dagaal baa ku socda dacal walba kaga socda hadafkaygu kaliya waxa weeyaan waxyaabaha bulshadeeda ka qaldan inaan saxo afkaarta saxana aan u soo waarido ta qaldanna aan muujiyo inay qaldan tahay garaadka bulshadeedana aan intii wax ka bedeli karayo ka bedelo waayo qofka bini'aadmiga inaad wax tarto hanti siiso oo maalin qada ka bixiso iyo inaad maalin hal xog uu ku faa'iido u sheegto hal xog baa u qiimo badan marka aniga ujeedkaygu waxa weeyaan bulshada wacyigooda inaan dhiso higsigayga ugu weyn waa ka اسم لهيد وحياة السياسة وحا عاد كبيرتي يوم ما يا ما هي تدك السياسة ده ماملك الحمد لله ونسكف عنه مركب وحلي يقولها مامل كرا لكن سياسة ما أنت شرتها ما هم أنا أقول شان قاعد كرا شخصيا كأذن هان حوجات رئيسي وحا كتشرا وحيابو أنت بدن أدت كعبسي قلية سيدا مركز كشاكين سيد ماسونين تا سيدا مركز كشاكين سيد يهودا متشرن وحا عقبة السلالة هاي هالكاوي كاجي من كريان niyo in adeer horta cabsida la sheega marka hore baa doqoniim cabsida la sheega ilaahay baa in badan noo sheegay fala takhafuhum khafuni fala takhshaw nas wakhshawni ilaahay baa boqol jeer nagu war cidna ka baqin aniga qurayga baq wax la yiraahdo cabsi adeer qof loo ruuxa ka cabsanayo qof iimaankiisu liito haddii xataa ay jiraan oo halis ay iman karto walaal markaynu goob walba majaalkii warbaahintii iyo siyaasadii iyo noloshii meel walba aynu banaynay in cadawgeenu inaga soo galo oo sidii la doono wax la inoogu sheego qof نفرت سمايا أما هريتان سمايا وبرر وحيابها اللوايو
bulshadu way dumaysaa hadhow gurigaaga kugu imanaysaa inantaadii inankaaga madaxeeda arkaysaa walaalahayo tumanayaad hortaada ku arkaysaa oo aadan xamili karaynin niyo markaa wallahi horta anigu shakhsiyan runtii marka laga hadlayo waxaan kama baqin waxa alisana uma malaynayo inay iga imanayso kuma fikirin habeen laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan war mafhuum kasta oo khaldan wax kasta bulshadana ka khaldan intii karaankayga ka garanayo intaan soo baaro inaan sixi karayo bal dadka kugu leh miyadan baqaynin miyadan sidan noqonin maxaa jawaab u gudbin lahayd ama falcelin aad ka gudbin lahayd niyo muuqaal baan ka sameeyay sax imkan waniga ku sheegay nacs ka baqa sax qof loo baqay hadda aragto waxa la yiri qofka fuliga ku jeer budinta sax geesiga mar budinta macnaheedu ma inaan geesinimo sheeganayo sax laakiin haddii aan fulay noqdo maalin kasta waan dhimanaya maalin kasta markaan arko inantii yareedo ilaahay caruuriisa iyo mulxidada ama diintii wax ka sheegayso ka baxday markaan arko inankayga iyo dimuqraadiyada iyo balaayiyo waxaan garanayn doodaya markaan arko walaalahayo meel xugsada markaan arko bulshadeedii guud ee Soomaaliya loo oran jiray cisiga iyo sharafta lahaydoo god ka dhacaysa maalin kasta waan dhimanaya ma gartaynaada mar haddii kulliba dhimasho too naftaada baxaysa ay tahay warsi sharaf leh ku dhaafto tarba dadkan waxa ka maqan war waxa ugu weynee laynagu wada dalbo raadiya waa shahaadada inuu shahiidno ilaahay dartiisa u dhiman taas geeriyo noogu imanayso ilaahay wuu inuu disan fillahi alxamdulillah halkan nagana socotaan waa Kala Media Production aad naga daawanaysaan barnaamijka qaybihiisa saddexaan ku jirnaa aadan maxaad bal dad waxa jira ku taageera anigu koow ka ahay oo taageerayaasha ka mid ah anigu waxaan kugu soo xiriiriyay channel-kaagan daawan jiray maalin baa inaan wuxuu soo share gareeyay video aad leedahay bacdeen statuskan ku dhuftay videogii baan arkay uu anfacay subscribe tan saartay gambalaalkuna waa saartay ilaa waaga ilaa imku waan la socday channelka bacdeen waxaan ku hamiyay oo aan niyada gashtay inaan is aragno waqti wada qaadano dadkan inta badan waxay xiiseeyaan qofka haduu macnaheedu waxtar u leeyahay la joogiisu u xiiseeyaa sida awgeed marka waxaan jeclaystay inaan mar waqti wada qaadano aan barnaamij sameeyno waan xiiseeyay tiin ilaahay ii hirgeliyay maanta alxamdulillah baan leeyahay awoodda aan halkan ku yimid aan traga ku soo raacay ilaahay bay siiyay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa bulshada ku daawanaysa ku taageeraysa maxaa leedahay nabad walaal kaaga mahadnaqayaa waxa soo qadarin oo aad sameysay marka koobaad bulshadana marka waan mahadnaqayaa iyagana laakiin khawaa asxaabtu waxaan ku baraarujinayaa warni cidna taageerin cidda uu doonaha ahaadee cidna taageerin niiro saaxiibanaayba wuxuu halaysu leeyahay qof walba inta saxda ka qaado si aad sax dhameystiran u noqoto aan shakhsiyan aadan baan ahay waan ka fikirayaa bal waxaan badankaan ummadda u soo gudbinayna waxaanu buugaagun ka soo akhrinoo soo tarjumay ingiriis iyo carabi baan ka keenay waxbaan erayban haddaan doono si qaldan u fahmi karaa fikrad baan si qaldan u soo gudbin karaa qaar baa aniga ila quman oo qalafsan oo aan aqaano anigu shakhsiyan aan leeyahay laakiin aan bulshada u soo gudbin marka inaad qof taageerto tahay boqolkiiba boqol qofka aan taageersanay waxay ku horseedi kartaa wax kasta ku leedahay sidiisina ku maran marna iyo bulshada horta marka badan uga mahadnaqayaa ku xirnaanshaha ay ugu xiran yihiin mar labaadka mar kasta waan ku booriyaa imkana waan ku boorinayaa war waxaan aan idin soo gudbinay iska shaandheeya iska eega kala hufa intii sax idin kala muuqataad sax u aragtaan ka qaata intii kalena anagana noo sheegay inaan ku qaldanay idinkuna iska jira taageerado bal iminka adigu wax wanaagsan baad soo gudbisaa bal ka taageeriya ninka la yiraahdo dadkan Messi iyo Cristiano Ronaldo iyo soo kama duwana kan aqoonta soo tabinayo taageeriyo wala ku duway hortaasna dadka wax xidiga looga dhigaa waa in la taageero macnaheedu wax weeyaan wax kasta yiraahdaan in lagu daydo maanta Hindiya wadanka dhan Hindiya leeyahay adduunka ugu dadka badan la marka China laga reebo waa dadka lagu xantiinayeen dadka adduunka ugu garaadka maskaxda badan laakiin macaalasif dadkaas oo dhan waxa hogaamiya hal eray oo u yiri atore yaro film drama gabar yaro film tasho ay kelmadii saabuntii ku meedhataaba Hindiya oo dhan ku wada meedhanaysa taageeradan marka horeba ujeedka laga leeyahay dad xidigaal sameeyay dadka xidigaha dadka ay weefaan dadkuna ay ku deedaan ba wax kasta ay ku yiraahdaan dadka inay marto wayna ka gedisantahay in qof aqoon iyo wax wanaagsan soo tibinaya la taageera in la taageero qof waxyaabaha macna yacni soo gudbinaya iyadoo ay sidaa tahay haddana maadaama kani aqoon soo gudbinayo doonaya inuu garaadkaaga ku bixiyo haddana wixii sii dabagal sii shaandhe filmka muuqaal kasta aan soo dhigno aan soo bandhigo linkigii laga raaci lahaa tixraaciisa iyo meelihii aan ka keenayo wixii oo dhan website dhan baan u sameeyo intaan muuqaalka dhigo meelihii aan ka keenay buugaagta website-yadii wixii oo dhan intaan ka keenaan linkiga si ay u raacaan ay u sii baadhaan war marka waxaan mar kasta ku boorinayaa bulshada war waxaan idin soo bandhigayno iska baadho oo sideeda ha u qaadanin way binaadam man hoo nagaf waan u abuurana wayna ka duwantay inaad taageerto qof way dhici kartaa walaalo way wanaagsantahay inaad taageerto qofka wanaag kugu biirinaya nin baa jiray oran jiray man callamani harfan sirtu lahu abdan qofka hal xarf ibara adoon baan u noqdaa taageer sharaf qadari laakiin xadkiisa ha dhaafin
maxaa kale oo fariina waxtar leh oo mawaana dhalinyarta Soomaaliyeed aad halkan ugu diraysaa hal fariina ma gudbinaysaa niyo waxaan u gudbinayaa inaga jiilka inaga oo maanta inta 40ka iyo wixii ka waaweynay حتى هدي وحنوت تبسام يجي دبدومي waxaan ku soo biirnay ummadda leh Soomaalida xilligii ay ugu hoosisay ugu sharaf dhacsanayd ugu liidatay oo tamaanta dhacay caasimadeena la inoogu talinayo ama mid qalin hal inoogu taliyo ama qori hal inoogu taliyo fariintan markasta dhalinyarada Soomaaliyeed jeclayna inuu gudbiyo waxay tahay mar haddii naga aabiyashin bila mustaqbal naga dhigeen inagu kuweenu aabayaasha u noqonayna dhabarkeena ugu jira bila mustaqbal inaan ka dhigin haddii bila mustaqbal ka dhignayna dhalino adduunka inaan keenin aad baad u mahadsantahay aadan barnaamijkan quruxda badan aad maanta waqtigaaga qaaliga aad noo hortay aad baad ugu mahadsantahay waxaan joognaa maanta magaalada Burco barnaamijkan quruxda badanna waxaa iga duubaya saaxiibkay Cabdirays oo xagga kamarada ee qaabilsan isna aad buu mahadsan yahay iyo asxaab kale oo iyadana meeshan barnaamijkan soo qaban qaabisay haday noqoto goobtan wax ku duubano iyo haday noqoto qaababka wax loo duubi lahaaba aad bay u mahadsan yihiin barnaamijka waxaad kala socon doontaan Kalay Media Production iyo channelka sahanka xogaha labadaba waad ka heli karaysan aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan intaas nooga eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantahay شكرا